وفدي ودري وزيرka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo hogaaminaya xildhibaan Hanad Xaashi Axmed iyo Mujaahid Fahansiya ayaa gaaray dooxooyinka Gambadho ku habsaday ayaa aad u tiro badan waxaana goobta ayaa ka kicinay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaankaasi waxaana wararka ka warbixiyay Taliye Maxamuud Booro oo ciidamada goobtaasi ku sugnaa waxa halkan ku fadhiistay wax la yiraahdo oo looran karo waa masiibooyinka ka mid yihiin waxaan saakan ku soo bilownay rasaas هون حوي ديانكي oo kacay xoolo dhaqatadii waxa weeye ciidanka qaranka oo ka hawlgalay haddana waxaan soo gaaray wafti uu soo diray wasiirka warfaafintu waan soo gaaray iyaga indhahooda ku soo arkay hawlgalka meesha ka socda iyo waxa weeye yimi meesha jooga waxaan hadalka soo afmeeray xildhibaan Hanad iyo Mujaahid Fahansiya oo kamid ah waftiga wasiirka waxa halkan ku habsaday ayax koronkorra waxa la oran karaa waa masiibo qaran waa wax ka tan weyn deegaanka oo dhan waxaanu aad baa u diranaa xukuumadda madaxweynaha golayaasha qaranka kulli waxaanu leenahay waxay u baahan yihiin masiibo qaran inaan loo kala halin wasiirka beeraha gaar ahaan wasiirka deegaanka iyo durjoogta Shukri Baandare oo halka ka salaamano waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay in arrinta hadii la isu kaashado la soo dalabto